madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe prime minister ku-xigeenka labadii gudoomiye ee hogaaminayay doorashadii dalkan gudoomiyaasha gudiyadii doorashada gudoomiyaha guddigii federaalka iyo gudoomiyihii khilaafaadka iyo dhammaan xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee jooga iyo xukuumadda wixii ka jooga dadweynaha Soomaaliyeed ee sharafta leh fanaaniinta kala duwan ee halkan inagu madadaalinayay ee fikradaha fiican inoo soo jeediyey iyo dadweynaha oo dhan aad iyo aad baan u salaamaya salaan kadib waxaan filayaa hadda khudbad dheer oon halka ka jeedinayaa ma jirto waa hal eray waxaan odhanaya waynu sheegnay dhibaatooyinkii ina soo maray ee muddo soo taagnaa dhibaatooyinkaa waa ka gudubnay oo maanta waxaynu dhisannay haykalkii dowladeed oo madaxweynihii oo ugu horeeya la doortay iyo baarlamaankii oo la doortay waxa inoo haray waxa weeye xukuumaddii oo aynu dhammaystirno waxaan leeyahay oo keliya dib yaynaanu noqonin ee hore aan u soconno dib yaynaanu noqonin ee hore aynu u soconno oo ha noqoto anigoo hal eray waan aaminsanahay waxaan aaminsanahay de kolley qabaa'il baynu nahay laakiin qabaa'il dawlo intaynu ku dhisayno dawlo ma noqonayno waxaynu u baahan nahay iyadoo qabaa'ilka nafteeda lagu dhisaayo oo ay dabcan dadkiibaa sidaa u kooban laakiin qabiil weliba wuu leeyahay qof aqoon leh garanaya waajibka xilka loo dhiibto si fiican u gudanaya leesh kolkaan sidaa leeyahay oon leeyahay qabiil intaynu wax ku dhisayno dawlad noqon mayno waxaan leeyahay dadkii munaasabka ahaa lama geynayo leesh qabiil raggu waa 100 leh dumarkuna waa 50 leh ma kala fiicna oo kulligood waa isku qiimahaasay taagan yihiin kolkaa marka laga hadlayo dee reer hebel kolkaynu nidhaahno waxay keenayaan qofka ay kolkaa rabaan bay keenayaan ee ma iyagu ma ku qiimaynayaan dowladnimo iyo waxtarka halkaas lama raadinaye hebel la jecel yahay ayaa la keenaya sidaa la ajligeed dib yaynaanu noqonine hore aan u soconno halka fanaaniintu waxayna yidhaahdeen taariikhdu dadkay bartaa doraad waxay faleen cidna ma diido cidna ma dooro oo taa micnaheedu waa maxay taariikhda la soo maray haddii taariikhna waa la soo mari karaa in laga digtoonaado laga fogaado taariikhda la soo maray waa fiicnaan kartaa in la isticmaalo horena loo mariyo weeye taa fiican sidaa la ajligeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan 100% hubaa 4 sano uu dalka soo hogaamiyey wuu garan karaa maxaa ka khaldamay 5 sanana gebigiisuba dalkan meel ugama bixin wuu joogay xogogaal buu yahay wuu yaqaanaa maxaa khaldanaa ee la maray waxaan 100% kalsooni ku qabaa tii isaga ka khaldantayna wuu sixi tan la sameeyayna wuu ka leexan oo wuu sixi inuu jid fiican inagu hogaaminayo ayaan qabaa dib haw noqonina waad mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin waanu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa gudiyadii hawsa soo qabtay iyo prime ministerkii يعني سيدي لو أماني
وحوي وهؤلاء قبتين أي الله أمانية واد مع سنتين ما تسلم ومحسن هاي قدوميها